munaasabad ballaaran oo loogu diyaar garoobayo caleemasaarka ugaaska beesha reer xasan gaashreedle oo ka tirsan beesha Mareexaan side ugaas Maxamed Xasan Yarow ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi caasimada dalkan Kenya. munaasabadan oo ka dhacday hotelka Grand Royal ee xaafadda Islii ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano madax dhaqameedyo ka socday gobolka Gado, siyaasiyiin, haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi. ugu horeyn waxaa furitaanka munaasabadan ka hadlay xildhibaan Hilowle Aadan Maxamuud isagoo sheegay in munaasabada maanta looga gol leeyahay sidii loogu diyaar garoobi lahaa qabanqaabada caleemasaarka ugaaska cusub. xildhibaan Hilowle ayaa xusay in xafladda caleemasaarka ugaaska lagu qaban doono gobolka Gado, isla markaana waxa uu ugu baaqay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed inay xafladdaasi ka soo qayb galaan. shirkan wuxuu ku saabsan yahay إعلان أما كل واقع مدة على مساريه وقاس كجود بلا حسن قاشرله أمر حسن مريحان أنه وحن دورنا شركان وثنوية هي شرقات وقيموين إن شاء الله هو وقول لك وحن هو دونا كيف كل هذه الهي يدمو ورجع على مساريه وقاسك إن شاء الله هو وحن رجعنا قفك ومكروفك قصده أنا أقول أنا دوننا إنه نقول تاجره أما رأيي دي سنوها بدي أنت عن ما تقول واقع إن شاء الله وحنا قاعد دونا وقتي إن كان إن شاء الله وتام كل عزولنا عدي ديارو وهن أنا كوسادرنا عدي روح كنا لجوكنا قبل كجانا يا رب على شو دونا واسكا. sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay salaadiin, aqoon-yahano iyo waxgarad kuwaasi oo dhammaantood muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin qabanqaabada loogu jiro caleemasaarka ugaaska beesha reer xasan gaashreedle ugaas Maxamed Xasan Yarow. Suldaan Bayle oo ah suldaanka guud ee beelaha Daarood ayaa xusay inay taageerayaan ugaaska cusub. anigu nabadoon maayo waxaana ugaas guud suldaan guud oo Daarood waxaan meesha ugaaska inaan una dureeyo taageero anoo ku hadlaya afka Daaro Ismaaciil. taageero kalena maaga la wadaya waxaan ku soo goonayaa halka ku soo ururinayaa ilaahay ka dhigo midka xilkiisa hanta oo ummadda afaa ugaaska Xasan Gaashreedle inaad ummadda Soomaaliyeed anfacdo baan Allah kaaga baryaynaa kugu ducaynaynaa waana ku taageeray Korneel Xasan Daahir Yarow oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Gado ayaa sheegay in wax lagu farxo tahay in la doorto ugaas guud oo la isku raacsan yahay, waxa uuna ugu baaqay dadka xafladda ka soo qayb galay inay taageero xooggan siiyaan ugaaskan cusub. waxa weeye aan rabaa ka hadla laba arrimood oo yaryar sida hore la idin sheegay ama warqadda dhabarkayga ku cad ugaas Maxamed Xasan Yarow oo la caleemasaari doono December 30keeda ugaaska beesha Xasan Gaashreedle markii la caleemasaaro kadib wuxuu noqon doonaa ama uu ka mid noqon doonaa ugaasyada beelaha sade, kuwa beelaha Daarood, kuwa beelaha Soomaaliyeed iyo kuwa beelaha muslimiinta. gabagabada munaasabada ayaa la isku raacay in caleemasaarka ugaaska beesha reer xasan gaashreedle oo ka tirsan beesha Mareexaan side ugaas Maxamed Xasan Yarow la qabto 30ka bisha December ee dhamaadka sanadkan iyadoo lagu qaban doono gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado. Ibrahim Gedo Cawaale Bibo, Royal TV, Nairobi.